بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسود هذا معك إقرأ Institute of Technology. مقعيقوا أستاذ أبشر محمد. إن شاء الله تعالى maantay waxaan qaadan doonaa cashar ka mid ah casharadeenii noo soo socday ee koorsadeenii qiimaha badnayd Facebook, YouTube and blogger monetization. gaar ahaan qaybta iyo bloggerka ayaan ku guda jirnay website samayntiisa. maantay waxaan qaadan doonaa marka customize the layout. sida layoutga website-keena aan u bedeli lahayn ama wax aan uga hagaajin lahayn ayaan qaadan doonaa. marka si aan u samayno midaasi waxaan tagi doonaa website-keena ayaan tagi doonaa. saad u jeediinba casharkii ka horeeyey halkaan ayaan uga tagnay oo insha Allah taala oo aan samaysanay copyright-ka aanu hagaajinay. sidoo kale loogadan ayaanu hagaajinay mar hore. sidoo kale halkaani loogadii bloggerka ayaanu iska saarnay. maanta insha Allah taala waxaan samayn doonaa inaan qeybahani iska saarno oo linkiyadani marka theme-kani la socda qof kale iska leeyahay inaan iska saarno. sidoo kale qeybtani sportska iyo top brogan iyo waxyaabahan home-kani iska saarno. home anaga aan leenahay linkigeena ku jira oo aan leenahay soo gashano ayaan samayn doonaa. marka si aan u samayno midaasi ugu horeyn horta waxaan samaysan doonaa linkigeena ayaan qaadan doonaa oo midkani ayaan copy ayaan leenahay. kadibna marka waxaan tagi doonaa qeybta dashboardka ama wejiga hore ayaan tagi doonaa oo qeybtani ah. kadibna qeybtani waxaan ka dooran doonaa layout qeybta ay ku qoran tahay. layout marka aan doorano kadib waxaad imaan doontaa hidden menu qeybtani ay ku qoran tahay. hoosteedana link list ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa. halkaasi ayaan edit leenahay ama aan furi doonaa. kadibna hoos ayaan wax yar u jiidi doonaa marka scrollka. kadibna qeybahani ayaa waxaan leeyahay marka waxaan dhihi doonaa delete ayaan leeyahay. sidoo kale midkani delete ayaan leeyahay sports ma rabo. sidoo kalena waxaan leeyahay top bro delete ayaan leeyahay. intaa markaan samayno kadib waxaan leeyahay add new item ayaan leeyahay. add new item markaan dhaho kadib wax yar hoos ayaan soo socon doonaa mar kale. kadibna halkan waxaan leeyahay marka home ayaan halkan ku qori doonaa. home ayaan leeyahay. page-kani waa page-kii home-ka. kadibna qeybtan ayaan select garayn doonaa. kadib waxaan leeyahay control plus v ayaan leeyahay marka. control plus v markaan dhaho kadib waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. mar kale haddana waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. laba jeer waa inaad save aad dhahdaa. intaa markaan samayno kadib hoos ayaan u degi doonaa mar kale ilaa iyo qeybtani hoose ayaan tagi doonaa. qeybtani footer menu ay ku qoran tahay hoosteeda pageska ah ayaan waxaan leenahay iduna sidoo kale edit ayaan leenahay. kadibna wax yar hoos ayaan usoo socon doonaa. halkani waxaan leenahay marka home delete ayaan leenahay. about delete ayaan leenahay. contact delete ayaan leenahay. privacy policy delete ayaan leenahay. terms and conditions delete ayaan leenahay. disclaimer waxaan leenahay marka delete ayaan leenahay. intaa markaan samayno kadib waxaan leenahay waxyaabahani maxaa loo tirtiro isdhihin marka linkiye qof kale ama theme-ka la socday weeyaan. marka kuweena anaga ayaa samaysan doono oo aan soo gashan doono. isla meesha aan hadda aan ka tirayno ayaan soo dhigi doono insha Allah taala. don't worry about. marka waxaan leeyahay qeybtani add new ayaan leeyahay. add new markaan dhahno kadib waxaan leeyahay halkan site name ay ku qoran tahay home ayaan leeyahay. home ayaan leeyahay. home markaan dhaho kadib qeybtan ayaan dooran doonaa. kadibna waxaan leeyahay iyaduna control plus v ayaan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay marka save ayaan leeyahay. mar kale waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. intaa markaan samayno kadib qeybtani iyaduna oo qeybtani midigta ah halkani qeybahani haddii aan ku laabano website-keena wax yar mid ka mid ah haddii aan tagno qeybtani top sports ay ku qoran tahay meelahani ayaan marka aan wax ka bedeli doona. top sports halkan ay ku qoran tahay waxaan leenahay halkan edit ayaan leenahay. edit markaan dhahno kadib halkan waxaad dhihi kartaa wax adigo aad jeceshahay aad ka dhigan kartaa. latest news ayaad dhihi kartaa. latest articles ayaad dhihi kartaa. waxyaabahaasi ayaad leedahay marka kadib waxaan leenahay latest waxaan leenahay news ayaan leenahay. latest news ayaan leenahay marka wararkii ugu dambeeyay ayaan leenahay marka. kadibna waxaan leenahay halkani save ayaan leeyahay. save markaan dhaho kadib qeybahani qeybihii adigu aadan rabin marka qeybtani oo kale haddaadan rabin ediska qeybta ay ku qoran tahay waxaad leedahay edit aad leedahay
kadibna waxaad leedahay remove ayaan leenahay okay ayaan leeyahay waan iska remove gareeyay oo uma baahni sidoo kale midkaan asiguna waxaan leeyahay remove kadibna waxaan leeyahay remove ayaan leeyahay sidoo kale qaybtani iyaduna haddii aad rabto blog archive waad iska tiri kartaa qaybtani popular posts ay ku qoran tahay iyaduna haddii aan fiirino meesha ay kaga taalo website-keena aan fiirino popular posts meel ah uma jeedo marka waan iskaga soconaynaa midaasi kuwani marka qeybahani badinkooda ayaga ayaa bixiran marka insha allahu tacaala qeybahani sidaas ayay inoo ahaan doontaa intaan markaan samayno kadib waxaan ku laaban doonaa marka website-keena ayaan ku laaban doonaa kadibna waxaan leeyahay refresh ayaan leeyahay isbedelka dhacayo fiiri marka hadda sidaad u jeedo wax yar fiiri marka refresh ayaan leeyahay refresh markaan dhahno waad u jeedaa halkaani home oo keliya ayaa inoo yaala halkaani sidoo kale home oo keliya dhammaan qeybii halkaani ku jira waanu saarnay qeybii halkaan ku jirayna sidoo kale waanu saarnay marka halkaani anaga ayaa samaysan doona waxayna aan soo gashan doona about us contact us iyo kategoriyada aan rabno inaan ka hadalno oo website-keena looga hadlayo halkaan ayaan soo saaran doonaa oo qeybtaani ah sidoo kalena footer-kana waan samaysan doonaa qeybtaani waxaa lagu magacaaba main menu qeybtaanina footer weeyaan qeybta haddii aanu tiraynay oo qeybtaani ah waa footer marka main menugaas iyo footerkaasi waxyaabaha sida loo sameeyo insha allahu tacaala casharada soo socda ayaan ku baran doonaa oo dhowori sidoo kalena weli website-keena ma soo gelinin wax lagu magacaabo marka article iyaduna waan samayn doonaa article ayaanu diyaarin doonaa oo marka si fiican aad uga bogan doonto insha allahu tacaala marka casharkeena maantay halkaan ayuu inoo joogi doonaa waxaan idin leeyahay soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu